بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي برنامجكينا وايرق انتي اللي سعودتي تضباطكي هوري waxaynu ku soo qaadanay wareysiga loo yeelay Mujaahid Muuse Maxamed Xaaji Muuse oo loo yaqaan Muuse Wadaad waxa uu kamid ahaa halgeemayaashii ka qayb galay dagaalkii buurta Sheekh ee sanadkii 1984 bishii November waxaynu taagneed iyadoo dagaalku dhowr casho uu ku socday rag aan badnayn markaasi ay ka dhinteen dagaal joogto ahina oo muddo 3 maalmood uu ku soconayay markii ugu dambeysana meesha dhufeeca la yiraahdo iyada oo nin odaya oo buraale la yiraahdo uu gurigiisa ku leexiyay 12 neef uu qalay kadib uu walaacay in raadka loo soo raaco hase ahaatee lagu dhirigeliyay in uu ilaahay ka hashado isla markaasina calool adeeg sameeyo kana guuro meesha sidii ciidankina iyagoo isku dhan ay halkaasi aanay u dhixin ee ay ka kalaheen ninkii buraalana oo halkii ka guuray ayay inoo taagneed Muuse halkeed uga gudubteen markaa waxaan uga gudubnay dhinaca sheekh waan ku socon way marka maalintaas aanu halka buraale ka tagnay habeenimada markaan ka tagnay waagi noo bariyay waanu soconay meel sheekhna ka sokaysa oo isla marsado oo jidin yar la yiraahdo ayaanu iskaga harsanay way maalintaas wixii afreetan baa way wax dagaal maalinta ma aanan gelin cadowgina noomu helin way casarkii markay tahay ayaa saddex nin la diray waxa la yiri sheekh taga inooga soo iibiya raashin way aadan garwaf iyo jaamac meegaag iyo guri diin qale Allah naxariisto oo isna jaamac loo jeedo nin dhakhtar ah veterinary ka soo baxay saddexdaas loo diray sheekh way waxaana lagu la ballamay ceel leeyahay gobli oo duleedka sheekha صح ayaanu yimid halka idinkuna naga soo day anana waan carownay gabalku dhaxdu noogu sii dhacay fiidkii waxa lagu leexiyay marka anaga goblana lagu leexiyay صح horta sheekada ayaan ku sheegay dhaafay markaan casrkii halkii joognay jidan yaalay intaan aan dhaqaaqin ayaa saddex nin oo ka soo caraabay sheekh oo reer miyiga ayaa waxa ku jiray oday dhul bahanta way oo deegaanka ah haye inankii ku dhaawacmay xarig maxamed cabdi qodin oo socod ku adkaaday oo socon kareynin ayaa loo dhiibay odayga dhul bahanta odayga waxa la oran jiray ilaahay naxariistay cali cabdillah yuusuf way nin deegaanka reer sheekh abuha والله يقانو la yaqaano dadkiisana la nool duruufana صح inankii isaga loo dhiibay waxa la yiri inanka adigu saad oran sadhe waa ku ka way cali cabdillah inankii uu baantay sheekh buu tagay dhar buu uga soo iibiyay daw uga soo iibiyay kabu uga soo iibiyay dareeskii uu ka bedelay dhar cad shicib buu galiyay kaba sandale buu galiyay dawooyin iyo ari uu qalayba صح uu baantay good inankii markii uu ladnaaday intuu kaxiyo sheekh geeyay uu gaari ka saaray barcuu saaray lacagna uu siiyay uu burca kaga sii raacay gawaadhida hawdka wuxuu nooligaagina waa ka saxayna waa taa استبر burca ma ka tagto gawaadhida hawdka raac صح inankii isaga nooga horeeyay qaaxo marka taasi waxay ku muujinaysaa Axmedow halgankii loo dhamaa صح oo aan qabiil ahayna nin walba aqoontiisa iyo aragtidiisa uu ku socday midna siyaad bare la safanayay midna la safanayay صح ayuu dadka lahaayeen صح marka iminka odayga ilaahay naxariista uu dhintay laakiin dadkiisi waa reer sheekh wadagaan صح waa joogaan way magacii sharafna waa ku leeyahay صح maalinta dagaalinu helin hay maalintii ku xigtay maalintii ku xigtay waxaanu galnay dawga sheekh way laamidaan galnay صح buur yar oo fiiqan oo dheer baa saddex in la saaray haye nimadaas waa ilaalo waxay arkayaan gaariga ka soo socda xoogay markuu buurta soo dhex marayo ay arkayaan way soo sheegaya ciidankana laba loo qaybiyay qayb maxamed cali wata xagga sheekh ayaa la qaabilsiiyay haye qaybta kalena waxa la qaabilsiiyay xagga hudisa u jeeda marka gaab baa noo dhaxeeya xoogay labada ciidan in dooro u dhaxaysa qolba dhinac bay kaga jirtaa qolada maxamed cali wata xagga sheekh waxa amar ku haystaa wixii baabuur shiciba inay soo daayaan oo anna waanu qabano qolada xaggan صح marka anagu meel baarkan aan haysanaa weyno gaariga soo maraba oo baarkan gareynana waxba dhaafi maaya halkaasaanu galnay dabeetana waxaana soo maray goor dambe oo duhurkii ciidankii uu wato nin la oran jiray jihaad way oo ciidanka dawargoynta isaga la baxaya haye fadhigooduna cadaad leeyahay gaashaan looha wuxuu watay afar gaari laba waaweyn
oo ciidan saaran yahay iyo laba yaryar oo qoryo saaran yahay way kala horreeyeenoo waxa soo horreeyey gaari weyn iyo kuwa isagu la socday oo gaari yar dabeetana rasaastii markii lagu bilaabay gaarigii weynaa ee ugu soo horreeyey ayuu dareewarkii joojiyey ka booday dareewarkii intuu joojiyey ayuu ka booday gaarigii ma noo taagan yahay rasaastii ma lagu boobay inaan jabhadda ka mid ahaayo baashe aadan cilmin la odhan jiray ayaa intuu bamba f1 biinka uga jaray ayuu ku dhex tuuray bambadii baa waxay qarxisay miinadoodii rasaastoodii hubkoodii baasukayaashu wixii baa isla qarxay gaarigan jihaad la socday ee yaraana isagoo maqiiqanoo xawaaro ku soconaya ayuu kakala sanka kusoo qabtay isagana tacshiiradiina waanu ku hubinay qaraxii iyo ololkiina way gaadheen gaarigaa yaree uu jihaad la socday markaanu kala degnay 2 sanduuq oo kalluuna iyo 2 sanduuq oo rasaas aanu kala degnay ayuu qaraxii isagana gaadhay iyadoo waan ka turkumay halkaa waxaa ku dhintay ciidan ilaa 60 ah waayahay taas waa intii dagaalka baabuurtii shicibka ee aanu layngaraynaynay ee halkan noogu baarkin garaysnayd waxaa la socday niman askara oo fasax gaaban meedho sita oo ilaa 8 tiradoodu oo markii aanu joojinay bay waxayna moodayeen ciidankii dowladda nin waliba wuxuu la soo baxay fasaxiisii maanaan ka waalna waxaanu ku fasaxaagana hayso taysarayso iska fadhiiso halkaa shicibka dhex fadhi dabeedna ninka leeda xasan dayax ayaa loo diray shicibka la hadal baa la yidhi shicibkii buu la hadlay oo askartii dhex fadhido wuxuu yidhi anagu ururka eesanan baanu nahay ciidanka dowladda siyaad baran la dagaalamayna shicibna uma soconno qabiilna uma soconno nimanka ciidamada ee nimkayna dhex fadhiya ee fasaxyada gaaban sita mar haddaanay maanta qori noo sidan wax alla waxaan u sheeganaynaa ma jirto annagoo weliba og berri inay qori soo qaataan na soo raadsan doonaan haddana maanta haddaanan dagaal ku qaban waxba u sheegan mayna buuri shicibna waxba u sheegan mayna marka halkiina iska fadhiya halkaa markii sheegadii marayso maxay markaa dareemeen inan baa mashxaraday inan la socotay bas weyn oo hargeysa ka soo baxay ayaa mashxaraday haysan kari weyday ku qiirotay istii malaa dalkii meesan ba qabsatay adigu halkii sidaan ugu jirnay deetana marka shicibku guud ahaan intee bay tiradoodu qiyaastii shicibku wallahi way badnaayeen baabuur aad u badan baan qolaal bay gaadheen ilaa dhowr boqol bay gaadheen horta baabuurta yara tagaa sida ilaa tirsan birga waddanka ku yahay waxa meesha mariyay gaawadhi xamuula iyo booyadu iyo baskaa weyn baa ugu badnaa baskaa weyn ilaa kontiniyada kama badnaa marka adigu ilaa 100 meelaha ay noqon karayeen sidaan halkii ugu jirnay ayuun baa ciidankii maxamed cali ee xagga sheekh joogay ka baxay halkii uu difaaca ka jiray 3 jeer ba xagga sheekh laga soo weeraray 3 jeer ba iska waabiyay oo mar waxa ku dhaawacmay taliye saldhiga sheekh oo u bayar looran jiray waxa loo jiray aadan saciid u bayar ba ku naanaysteena oo saldhiga sheekh haystay ee hatta ku dhaawacmay oo qoladii soo weerartay aha 3 jeer markii weerarkii yimi ayuu bedel bismeen markaa ayuu bedel sameeyay dhinaca bari buu baxay waliba xagee uu soo kicinay bari buu baxay ibraahim dhagweyne oo afar askari oo tun baa shii hadda ciidankii maxamed cali bal soo eeg cadawgii xagga ka soo socdun bay afka iska hor yimaadeen dad baa soo yaacay waxaan yiraahdeen war baa xagga baa naga soo galay ka baxa annaguna dhinaca galbeed baan u baxnay dhinaca galbeed ayaan u baxnay cadceeduna waa gaabantay waxba nagu way soo ridin annana kuma naridin gabalkii markuu dhacay waxaanu sidanaa markaa raashin aanu kala dignay baabuurtii aanu leengaraynay sax ayaanu kala dignay raashinka waa la jeexayaa deedna wali wuxuu qaadi karayo farq ku qaadi karayo ayuu ku qaadaya raashinkaas markaa nin waliba ayuu guntaya waxaan ku dhaadhacnay doox laga salaweel oo aad u dheer meel mala aan sidii daayeer mooye binaadamo maro ragaygii buura ku dhashay baanu fujada ku guuranayno baan habeen ka dhaadhacnay salaweel baanu tagnay halkaasaan ku karsanay subaxiina dhinaca shisa salaweel ayaan kasoo fadhiisanay buurida xaggaas sax halkaa waxaan markaa taraagaraynay ibraahim dhagweyne nagu wargeliyey in aynu ka daba tagno ciidankeeni bari maxamed cali baynu qorshaysanaynaa bal halkeenu mari lahayn iyo inuu markaa tir ahaan labadii ciidan ee aad u kala jirteen keebaa badan dhinacan galbeedka aanu qabanay baa badan ilaa 8 baan inteeda badan sax maxamed cali ilaa kontineeyo ayuu xagaa ku haystay
adigu halkaa waxaanu joognay 2 maalmood oo maalinta hore dagaalamo qabsanay maalintii labaad bay bartaan ugu yimaadeen ku dagaalamay maalintaana waxaa naga dhaawacmay odayga maxamed lawan jiray shukri maxamed samatar iyo nin lahada maxamuud xuseen ilaaye oo imika ingiriiska degan laba salka naga dhaawacmay oo baasuuka ku agdhacayo finiinadii baa galay waxaan u sii kacnay deedna galbeed marsaan dub u sii xulnay meel la yiraahdo buqaha oo imika tuulo noqotay oo la yiraahdo kulmiye beriga laakiin aan tuulo ahayn laakiin beeraley ayaanu qabanay صح waxa noo sii diyaar garoobay nin ka soo goostay ciidanka siyaad barro loo oran jiray Cabdi Nuur Boobe oo military ah meeshana beer ku lahaa ayaa raashin noo sii kariyay oo sigaar noo sii diyaariyay oo buuri noo sii diyaariyay oo de garanaya ciidanku wuxuu baahan yahay صح dabeetana halkii baanu tagnay waa nagu hor yimi isaga nakixiyay beertiisii nageeyay doox biyalu nageeyay wuxuu yiri maanta nasta inna maantira gaara صح oo qoriyo sita gaar naga haya meeshana waa ay jiqa oo dhirtu aad bay ugu badantay dad afarta laba socoto saaxiib gaarkii meeshii oo kaalib dhaya صح maalintaasaan horta maydhmaydhana intaan buurta ku jirnay maalintii misaad markaa maalintii koobaad maydhana waxaan u malaynayaa qiyaastii inay noqonayso bish 17 meelaha صح maalintii tobnaad bay ku dhoweeyay qiyaastii hareeraheeda ha maalintaasaan horta maydhanay oo dabeetana qadasateen bariis qadeynay oo iska nasanay habeenkii baan ka guura galnay Cabdi Nuur Boobana waxaan u kacnay xagga gacan libaax buurta gacan libaaxan ku socono Cabdi Nuur Boobe ilaa 3 habeen maan ka tagnay waxoogay markaan soconay qiyaasi saacad oo ciidanku fiilo ku jiro ayuu mid gamay iyadoo la socdo uu istaagun ciidankii inna way socoto intii ka dambeysana way istaagtay waxay moosay inay taagan waxa la arkay ha sarjoogu ku ma dhicin dabeetana markii la ogaaday ciidankii inuu kala goosmay qoladii hore socotay bartaa taagantii fadhiistan yiri jaan qarash baa dab loo diray bal ciidankii hadhay doon jaan qarash baa dab soo xoray iyaguna bartii fadhiistay ayuu yimi meeshu waa ay jiqo hadaad talaabada ka hore ka seegto oo geedku xagga ka marto waa kala lumaysaa dabeed jaan qarash wuxuu go'aan gaaray waago bariye mooyee inaan labada ciidan isu keeni karayn qolo kasta halkeedu fadhiisii dabeetana markii waago bariye baa labada ciidan la isu keenay halkaasaan dabeetana subaxii haddana oday riirmiyo loo jira oo loo haysta baanu dibi ka iibsanay halkaasaan dibi ku qalana waa maalintii koowaad aan arko neef aan lagu karanaynin la solayo ama la bayfaynayo anigu dee weelu ma karin waa solay ha dibigii inta la qalo la googay ay madafkii la duldhigay ay gebiso inta god la qodo dab lagu shiday la duldhigay baa dadshana laga diday deetana maanta halkaasaan isaga nasanay dibigaasaan cunay habeenkii dambe ayaan haddana gacan libaax gunteedii qabsanay laa iyo fikta sare aan u baxaynay buurtaas waa buur aad u dheer meel lahda garbakeyle wadda garbakeyle lahdo oo gacan libaax ku baxda ayaanu habeenkii oo dhan sii fananayn waa dhawaadka aan dushii gacan libaaxee banaanayd u baxna صح gacan libaax qudheedu waa buur aad u ballaaran oo qaybna dhir bay leedahay qaybna waa bannaan qaybtii bannaanka ahayd ayaanu u baxnay صح adigu markaa uu naga warhayaa markan aanu kulmiye ka joognay aanu ku qadaynaynay weyna arkayeen oo sahankoodu nagu soo dhawaaday laakiin wax dagaal ay kuma soo qaadeen waxaanay kala garan waayeen inaanu guban u dhaadhacayno oo xagga guban qabanayno laamida kala goynayno iyo xagga gacan libaax qabanayno labadaba iyaguna way ku talagelayeen oo si fadhiistaan markaan waagi bariyaanu gacan libaax u baxnay ayaa waxaan maqalnay guux baabuur guuxaysa dabeetana waxaan u qaadanay in baabuurtu tahay baabuurtii wadada gooda weysay mari jirtay inay tahay Ibrahim Dhagaweyna wuxuu ka haystay 7 askari wuxuu yiri baabuurta guuxaysa mid noo soo aftuubaya dabeetana way ku talaabayna halkiina ku jiro difaac gaarna iska qabta in yar markay naga socdeen ayuun bay dabadeed soo eegeen xaggayga soo eegeen dabadoodii soo eegeenoo xaggayga bay soo jiliceen mise ciidan baaba nagu soo dhow
way soo yaaceen marka kaca ciidan bay nagu soo dhawo dabeetana waanu nala kaakiciyey waxaa la yidhi dub gacan libaax aan ugu noqonayo halkii dhirta waxayadoo aan dee ku dagaalami karaynin dabeetana buurtii dub moo kornay kooxda ugu dambaysa aan ku jiraa bay soo gaadheen kooxda ugu dambaysa anigu aan ka mid ay soo gaadheen waay shoo xaggan go'dana baabuurtan guuxaysa maaha shicibe waa tiknikadiyo markaa ibraahim ay soo noqdeen iyo 7 askari waabay ku dhawaayeen iyagana waana arkin kooxdayadii bartii waan fadhiisan halkii waan dagaal laga bilaabnay way isku ridnay ciidanka iyagana uu socdo kale koox malaayla soo duneeyaa ayaan ku hadhnay dabeetana markaanu saacad meelaha dagaalamayay ayaan markii dambe kacnay aan shiibal ciidankiini gaare kicidaanu kacnay baa xaggana tiknikada naga soo gashay dabeetana raggu uu yaacayaayo nin waliba wuxuu isleeyahay ciidankaagii gaadho markaa orod guclaanu ku jirnaa xagga dabadana waa naga ridayaa barbarkana way nagaga socotaa dabeetana rasaas fara badan oo tiknikadu ridayso ayuunbaa horteedaasaa ugu dhacdo markasaana sidhi war rasaastaa ka baydh dhinacaa u baydh baan shiishay show dhinacaan u baydhay waa gebi baan dabeetana ku dhacdhacay horta maalintaasaan ciidanka ka baydhay anigu waan ka sayrmay meel gebi oo dheer ayaad ka dhacday waan socday oo markan gebigii ka dhammaaday ba haddana mise gebi kale iga sii hooseeya meeshu qiyaastii waa ilaa 4 gebiyo kala hooseeya markaan 2 ka dhaadhacay ayaan gud galay gudkaasi markaa waxaan arkaa inuu safe yahay oo xagga sare haddii bamba layga soo tuurana ay dhaafaysay daafta qabanayso meel laga soo shiishaana aana jirin meeshuna dhir tahay halkaa aan soo marin mooye meel kaloo soo maraana aana jirin go-aan baa waxaan gaadhay in halkii iskaga jiro gobolku igu dhaco deedna aan caawa ka baxo waay haddaan waxoogaa ku jiray ayaa waxaan maqlay sanqadh bartii ka soo gashay haye sanqadhii baan foorarsaday waan eegay waxaan arkay lugahooda hoose inuu dariskaygiio kale yahay deedna waan gartay saaxiibaday qaar ka mid yihiin waay waxay noqdeen ma maxamuud ilka case nin la yidhahdo oon saaxiib ahayn iyo yoolyool bartii bay igu yimaadeen deetana halkii baan go-aankii aan qaatay bay ila qaateen in bartaa ku jirno caawan aan dub u baxno markii gabalku dhacay waan deetana 3 nin dub baxno ciidankii kale waxay mutaysteen markaa war ma ka haystaan ciidankii hore ee maxamed cali iyana hore idinka go iyana warka ma haystaan waay 3 ayaa Soomaaliya iska warhayna haye goor fiido oo cadceed si dhacaysaan dusha soo baxan waay dadaada aysa haye ceeriyaan ayaa jiq ku noqotay arlada waay ceeriyaantu markii didada leedahayna dhibca yar bay ku samaysaa caleemaha maalinta haraad awgeed caleenta yar dhibca saarumaan carabka la raacaysaan bahada dhuntu ugu qoyso dabadeed habeenkii oo dhan waa lugeynin habeenka horta anigu waxaan iska ahaa qof asqaysan oo kale oo dhinacaan u jeedin marka yoolyool maan hor socdaan daba socon waay goor waa dhawaada horta ma intaan waa dhawaadkii la gaarin baan reer u soo baxno reerkiiba intii beriisa noo kariyeen baan haddana ka soconnay goor waa dhawaada baan waxaan seexanay meel go-yar u dhow ayaanu seexanay waay markaa habeenkii waxaad u qaybsanaysaa inaad socoto iyo inaad reeraha haddee sii marjido inaad nasato inaad yara seexato eed u qaybinaysa dabeed niman dee shaloo dhanna dagaalamayay ma ahay haloo dhanna lugeynaya jarar ka dhacay waanu dhanqalanay dabeetana 9kii subaxnimo ay ma saragteen ayuun saragnay weliba sanqar baan ku kacnay islaan awr wada yar baan naag seexanay islaan awr wada un baan sanqadheedii ku kacnay sanqadhii markaan ku kacnay dabeetana islaantina go-yar bay tagtay waxaa jidiyay halkana ciidan fadhiya go-yarna way qaxday waana cadowgeena mood ninkii bakhaayad haystay kii dukaan yar haystay iyo kii yar haystayba waa laga qaxay magaaladii annagiina waxaanu nidhi imka cadowgii laydin soo sheegayaayo mar haddii leen arkay waa laydinku soo maqanyay waa kacdeen markaa waanu kacnay buurihii baanu soo eegnay buurtii ugu yaro dhakada fiiqnayd ayaad fuusheen dhakada uga baxnay 4 dhan baanu iska arkayna halkaasaynu maanta joogeynaa cidda dhinaca leenaga soo socda waynu iska eegina
show niman annagii laga qaybaan nahayo ciidamada soo socda anagu iska baqayna halkaas adeetana maalintaana ay ku dhamaatay way waanu ka guura galnay haye waxaanu qabanay xagga ayaha qayaanu kacay way haye maxamuud ilkacase oo saddexdan saaxiib labada kamida ceelkii xarayli oran jiray markii roo soo martay على عوك اللي على عوك بقطع على عوك شنو حوالي كبحضة كل با انتو حاقي هذا ابو حنشر لي صدفة تبيت انا وحنو نمي حقيو ميل اكتيده واي لبر يرو دياله ايانوني هي لبر يرو اسكرنا ينو انا كرتين واي كيد وين وقبه اينا هوسكليه نو حارحاري inaan xuseen waxa la oran jiray ciise aadan ducgub iyo cabdi daawud ayaa la oran jiray magacooda laba nin oo aan isku fahmin la isku raanahay la garanaya way dabeetana waxay yidhaahdeen warbixintii bayna siiyeen waxay yidhahdeen xaqiiqadan ciidana jooga askara gaari iska rogaan way haystaan way ay burco ku tagaan waxa loogu talagalay wixii eerida maraya hadduu ciidan badan yahayna inay burco u qayshadaan hadduu wax kooban yahayna iyagu ay soo qafilaadaan inaan dayaaradna waa laafto bay nagu yidhahdeen maalintaana dayaaradii cawil caday martuuba halkaasaan ku maqalna haroomanaan maqal dabadeed annagu waxaanu qabaynaa bayna juuridii waanu soo dhegdhegaynaynaa bal in laydin arkay iyo raadkiinii in la helay iyo in wax tibaaxa ayaan soo dhegdhegayna tuulida waan qabanaynaa halkiina iskaga jira geed weyn oo goba hoostiisa ayay noo xaadxaadheen neefna way noo qaleen shaahna way noo kariyeen waxay idhahdeen halkiina iskaga jira dabeedna markaasaan ku yidhi anigu markaa dee reer shiikh baan ahaayo loo jir baan ahaayo cadaabasha waan qabanaya awfaas noo soo qaadaan kuwii galabta awfaastii bay noo keeneen waxay noo keeneen in aan cidina arag ciidankii iska joogaan warma qabto wax idin arkay iyo wax idin dareemtona aanay jirin awfaastii baan deedna sanka kaga shubay ilkaas sanka markaan kaga shubay ayastii cadaabasha hoos u dhaadhaco halkaa dalqada markay marayso ilaafweedi ayaan mee kasoo jaray sheegu way dhaqaaqaysaa ku af kala qaad markuu kala qaadno kasoo jaray halkaasaanu habeen kaana labada habeen baa halkaasaan joogay galabtii damaan ku carroon awd wiinaan afka kor baa u baxdeen awd baan u soconaa awd wiinaan afka saaray habeenkaa waa markaan xusuusto axmedow col iyo abaar ku gashay inay habaarkan tahay aad iyo aad buurtii waan ka soo baxna waraadkayga qarinaysa dhirna way lahayd hadh leh صح وعقارم واي إيمك بص بانو صباحنا راتك ولا راتك مو قنايا مeel lagu gabanaya ma jirto meel lagu gabanaya ma jirto dhirta caleen male waa wada suugsuugantii waa jiilaan cadawguna raadsanaya deedna horta maanta waxaan xusuusta xoli abaar kuwash inay habaar cun tahay waanu asqownay saanu soconay baanu meel lehday beeyada oo ciidanka u joogay degay waan dafsoonay haye dabeetana cashaan baan aragnay war cashaanta aynu soo galno maxay ahayd واي deedna yooniyood baa meesha kala garan yidhi waa beeyadii ugu weyn ugu beeyadu waa maxay waa meesha ciidanku ba degan yihiin waa afartii habeenimo saacadu waa reedha maxaynu yeelnaa taladii waa nagu yar caddaatay haye waanu yaro muranna dabeedna intii yooni wuxuu yidhi war anagu waan seexanayaa ama seexda ama iska taga meesha lafteeda halkaa lafteeda xerada dhexdeediiba dusheedii bartii u seexda ilka casan oo ag seexda adna waad iskaag fadhiisatay deedna maxaan sameeyaa meel kuwa dhintu baan isiri way iska ag seexda markii waaga caddaaday ayaan ka kacnay meeshu waxay leedahay beero geedoodiyo xeryahan geedaha caws ka baxo kolba xeraan u dhacnay kolba beer baan u dhacnay adu markan dhowr beer u dhacnay baanu iska seexanay ku baanu galnay iska seexanay tobankii subaxnuun baanu rasaas maqalna dhacaysaa show wax raadkeedii bay ku joogaanoo kolba kobbay kusoo yeelbaadhayaanoo yeelbaadhkii baanu maqalnay markaasaanu dabeetana kacna waanu iska soconna helicopterna loogu iman maayee waxaanu soconnoba ayna soo daba galaanba 11 ayaanu reer jees ah oo meel yaalla aragna kuyaa reerkaan biyo u doonano markaanu kobtii ka baxnay aanu halkii bannaan u yar baxnun baaba rabta cashiiradii dhabarka naga saara showaabay nagu dhow yiinba
halkaasaa dagaalkaas maanta idinka ana helay waa saddexa waa dagaalkii ugu horreeyay idinku saddexaad in halaab noqday markaa haa ciidan inta leg baad ku soo baxay markaa waxaa nagu soo baxay ciidan kooxa haye ayaa nagu soo baxay kolay 20 kama yareen waay markii dambe saa la ii sheegay nin isaaqa baa watay ciidanka haye oo ciidanka wadina ka tirsanaa waay maxaa kala mutaysateen markaa waxaanu kala mutaysanay kolba baanu galnaayo iyaguba dee 2 nafood ma lehe markaad ku rido way daadanayoo gabanayaan beer ka dhigaya markaan xoogaa isku ridaa baanu dhukusnaa kobta kale aan sii galnaa kobtaanu ka baxnay ayaa cabbaa ku soo yoolbaadhaano marka dambe kaynta kale ayayna soo gaadhaan sidaa kolba uga baxaynay shantii iyo barhkii meel lahada geeldidiska ay naga hadheen sax waxna nama yeelin oo ilaahay rasaastoodii waad ka nabadgeliyey inaga nabadgeliyey iyagana waxba maanaan yeelin markii ay oodweyne ku noqdeen ninkii isaaqii watiyey waa la xidha waxaa la yidhi adaaba qurmisa nimankii manaad soo layn manaad soo dilin manaad soo qabqaban baa iska soo noqotay waa la xidhay dil baa tee baa lagu yidhi waxaanu galnay habeennimadii meel la yidhahdo qurac kudle waay qurac kudle waa ilaa 10kii habeennimaanu galnay haye waa tuulo yaro waa iska seexatay mid gidaar hurdaanu toosin horeedhe bal waxaad tustaa meheradii magaalada wuxuu yidhi tan naga soo horjeedaa waa meherad haye tii baan ku garaacnay waay sho waxa haysta odaygii heerhka ahaa ismaaciil xaaji xasan loo odhan jiray waay heer baankii odaygu uuna garta wuxuu yidhi sidaa buurta u gasheen waddanku waa bandow waay baabuur barca ka timaado raashin keentaa ma jirto waay inaan caanun baan hayaa waay caanihii buuna siiyey sax markaanu caanihii cabnay haa ka tagnay meel baar cadi dhow ayaanu iska jiifjiifsanay waay waagii markuu baryaanu kaa kacnay waay si tuuladii baarcad baa noo muuqata waay waxaanu go-aansanay inaanu baarcad dhinac ka marno oo si aanna loo arag horta maanta kob iska galno waay kubtaa iskaga jirno haddii cadow inoo yimaadona nasiibkeena kala qaadna haddaanu inoo imanna intaynu baarcad fiidka wax ka cunno aynu caawa sii dayno xadka ka tallawno ilaa 4 barkii gala dhimo waanu maalintaa ili shalay baanu iska seexseexanay marba mid gaadhka hayo ayuunba 4 barkii isagoo yoolyool gaadhka haya markaa ayuunbu na toosiyo waa kaca waa kuwane maalintaana waa unug ilaa 12 nin waay nin shicib bay wataan haye oo raadka garanayo ku jooga iyana way barbar socdaan markii inta nin leegnoo soo jiraan ayaanu ku bilownay maalintaa horta waanu ka dilnay taliyahoodii waay kii unugtaa watay sax waanu dilnay waay midna waa dhaawacnay haye inta kalena dib u yaacday deedna kobtii aad bay horta maalinta rasaas maca baasuukayaasha macateer noogu asqaysiiyey waay waxaanay damceen inay ka xayaraha wareegaan naga maraan annaguna waxaanu u diidnaa inay kala baxaan sax deedna xaggaa iyo xaggaa waanu ka ridnaa iyaguna kul marba xaggaasay u gurguurtaan marna xaggaasay u gurguurtaan markaanu aragno inay isfidanayaan baanu annana kusoo uurnaa rasaasta oo kii kacaba aanu baas xaggiisa u ridnaa dee soo dubu noqdaa sax dabeetana markii dambe waxaanu go-aansanay in midba mar kaco labana sii rasaasta ku reebto haa yoolyool baa ugu horkacay xabad bay la heleen halkaa feedhay kala heleen laakiin hoos may gelin way jiidhaysay mar labaadkiina anaa kacay mar saddexaadkiina ilka casaa inaga soo daba kacay sidaasaanu kobtii kaga baxday halkaaba noomay soo dhaafin halkaaba sax show taliyii baanu ka dilin laakiin anagu isma ogin waxaanu dili garan mayno sax waxaa naga horeysa jeelaya oo saldhig weyna oo guuta degan dabeedna waxaanu isweydiinay war miyaynu soconnaayo guutadii jeelaayanu u bareedhnaa mise unugtan baynu is eeganaa waxaanu go-aan ku gaadhay ilaa cayadu waa gaabantay waa ilaa 5 markaas aan unugta is eegano yaynaan guutadaa u gelin iyaguna halkiiba idina soo dhaafin annaguna halkiiba gabalki noogu dhacay dee baarcadna markaa iyagiiba tegayo annagii noola annagoo sidii markaa u gaajaysanoo haraadan baan haddana ka kolayaysan sax deetana dhinaca hawdkeygii aad baxdeen ayaanu baxna sida xad kaga taloodan sidaan xad kaga taloon inkastoo aanu halkaa 2 reer oo shicba kusii marnay oo midna shaah noo kariyey midna laxay shalay qasheen cadaheedii yaallo bar noo kariyey wahagaagiyadoo waqtigoona lagu kooban yahay guud ahaan bal khasaarihii muxuu noqday ciidankiinisa goormaas hesheen kale ee kala annaga khasaaraha iyagii intii sheekh gashay buurta sheekh intii gashay waxay noqotay dhimashadu 12 waay
marka la isu geeyay maca labadii meel la kacday dhimashadu 12 may noqotay way inaan oo 5 nin baa meel ku wada dhintay ciyaal iskuulkii go'aan lagu gaaray in la isqayb qaybiyo lagu baxo habqan afar loo baxo 25 isku raaceen deedna la beebay baa raadsaday marka anagu guud ahaan 5 iyo 12 ma dhimashada صح inaan qoladii laakiin maxamed cali warmaan mahayn wixii ka dhintay dee waxaana lagu soo ururiyay guba daaqon صح ee lagu soo ururiyay ايه inaan allah u naxariisto suldaanka suldan xasan bulbul ayaa wuxuu noo soo ururiyay geel واي weliinamada waan baaranaya صح deedna geel buu noogu soo dul xiriyay xerada maalin walba 2 awr loo qalab buul صح soo maad garan على انت ديفتي دكاريسي jiifta xariis صح halkaasaan كل ما تكشين kii meel ka soo galaba وسوي wada ما xal keenay الى هلكا السودي ilaa la soo diiday وهجاج آديات بعد ما تصنتهاي كاسو وحوها موسى محمد حاجي موسى أو كم ذاها رجع كقرب كلي دجالكي بورها يكون يسجل بقول يو أفريس ديتنكي بشي نوفمبر كارهانا بورت الشيخ قاسم دوري طبعا عشاء دجال استوتشوكي وكسعودي وحلو نجارمي هقول كاسو كوبلامي إلى الصدا وكسور الماضي بعد ما صنتهاي موسى برنامج كلمة تسلم كسور قبل أنت المركز كل ما إنه والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كاميرادنا وعبد الساق عثمان hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa telesom